السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود واضح آدي هذا ومهد سنتهين ما أنتوا السبتي وأنا لبي لباتنك بيش سدحاد ماتش سنة كلابا كون يشان يا لباتنك مقال كم حربا إن ندخل وذاقو أرميه ترافل بانك هورت اللي شلي جمعه إن ودقن قالوه ولما وسن دقن قلين لكن مامل كترام وحي ولسي وضان ودنك جوده إن أي دد نقاب فيزا كوجوجي أي كوكب قبطان dad baasaboorro Yurub haysta oo ama dalxiis ku yimid amaba shirar u imaanayay ama shaqo u imaanayay ayaaba la xirayba oo baasaboorro Yurub qaarkood wata kadibna qaarkoodna wadanka waa laga celiyay kuwana maalmo markay xirnaayeen kadib ayaa la sii daayay oo wadanka ay ka baxeen arimahaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago jaamacadda Columbia University oo ogolaatay dalabkii aqalka cad ay ka dalbadeen muxuu yahay dalabkaasi sidoo kalena professor kale oo isaguna jaamacad dhigayay oo la xiray laguna eedeynayo in uu urur argagixis xiriir la leeyahay garsoorihii maamulka Trump ku eedeeyay in diyaaradihii sabtidii la soo dhaafay wadanka El Salvador la geeyay wali ka dalbanaya jawaabo garsoorahaasi oo aqalka cad iyo waliba dawladdu wali jawaabo sax ay siin la yihiin isla markaana wali ay isku dhagan yihiin senator ka tirsan gobolka Minnesota senataradooda oo la xiray sabab la xiriira isagoo gabar aan qaan gaarin shukaansanaya la arkay oo ballansanaya kadibna waa uu iscasiray dacwada federaal ah ayaa lagu soo oogay arintaasina waa idin la wadaagaya iyo maamulka Trump oo sheegay inay dib uga laabanayaan TPS ama temporary protected status kii ay haysteen in ka badan 500,000 qof oo ka yimid wadamada Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela sidoo kalena arintaasi waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada cumreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin maamba dadka Soomaaliyeed waan u digayay kuwa doonaya inay hadda wadanka ka safraan iyo kuwa waliba ka maqan horta travel banki sidii la filayay in shalay oo jimcaha 22keeda uu dhaqan galo wali ma uusan ku dhawaaqin maamulka Trump lama oga xilliga uu ku dhawaaqi doono maalmaha soo socda ma noqon doona kulli iyaga ayaa laga warsugaya sidii ay sheegeen 22ka ma aysan dhicin marka arinta jirta waxa ay tahay dadka doonaya inay green card ku safraan ama travel document ku qaadaan passport Soomaaliya fadlan ha safrinina arintaasna dhowr jeer hore waan u sheegay sidoo kalena dadka xitaa passportka Mareykanka wata ha isku dayina inaad Soomaaliya u safartaan arintaasi haddii aad tagto oo aad soo laabato baaritaan dheeri ah ayaa lagu marsiin doonaa in su'aalo lagu weydiiyo in telefonkaada laga qaado maxaa ka doontay su'aaluhu waa su'aalo fara badan ayay noqon karaan marka Soomaaliya waad u safri kartaa haddii aad passport Mareykan leedahay laakiin soo laabashadaada maxaa kugu dhici kara arintaas xitaa qareenada qaarkood hadda waxay soo jeedinayaan wadamada red listiga ku jira oo Soomaaliya ay ku jirto dadka doonaya inay u safraan inaysan u safrin oo dadka ay doonayaan inay la kulmaan wadan dhaxdhaxaad ay kula kulmaan oo dadkaasi ay soo baxaan kuwan inta ka baxaan oo Kenya kale ama Ethiopia kale ama meelahaas lagu kulmo oo Soomaaliya aan la tagin ay qareenada qaarkood ay ku talinayaan haddaba gudaha Mareykanka maalmahan maxaa ka socday waxa jira sidoo kale nin asal ahaan wadanka Hindiya ka soo jeeda oo professor ah oo magaciisa la yiraahdo Badr Khan Suri wuxuu ahaa post doctorate ayuu wuxuu ka ahaa jaamacadda Georgetown University oo ku taala DC ninkaas waa la xiray toddobaadkan waxaana lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay Hamas dhinaca social media urur argagixis inuu xiriir la leeyahay propagandana uu dhinaca social media ugu sameeyay jaamacaddu arintaasi way iska fogeysay waxaana ninkaasi uu ku joogay visa shaqo isagoo wax baranayay ayaa haddana waxa uu research ama baaritaan uu ku sameynayay sida nabad looga dhalin karo wadamada Ciraaq iyo Afghanistan marka jaamacaddu waxay tiri ninkaasi waxyaabaha lagu eedeeyay kuma lug lahan aqalka cad marka
waxa uu awood u siiyey wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda inuu wadanka ka masaafurin karo dadka viisayaasha haysto kuwaasi uu u arko in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay caqabad ay ku yihiin. awooddaasi ayaa loo siiyey. marka hore waxaan ogeyn wiilkii Maxamuud Qaliil inuu weli xiran yahay, isagana ninkan Louisiana ayaa lagu xiray, waa halkii Maxamuud Qaliil uu ku xirnaa, iyadoo welina dacwadiisa hadda Maxamuud Qaliil ay socoto oo weli aan la tarxiilin ama aan la masaafurin. sidoo kale saynisyahan Faransiis oo doonaya magaalada Houston inuu shir uga qayb galo ayaa markii Mareykanka uu soo galayay airportka lagu qabtay, telefonkiisa ayaa la baaray, waxaana lagu arkay hadallo uu ku cambaareynaya Trump. sidaas darteed waxa la yidhi saaxiib iska laabo, waaba la celiyaba. waa nin baasaboor Faransiis wato oo saynisyahana oo u yimid shir inuu kasoo qayb galo, walow wasaaradda arrimaha dibadda ee arrintaas sababta loo celiyey in telefonkiisa hadallo uu ku cambaareynaya Trump lagu arkay darteed wasaaradda amniga gudaha waa ay beenisay arrintaasi. sidoo kale waxaa jirta gabar kale oo Kanadiyaan ah oo iyaduna agtarad ah, fiisa shaqo ayay Mareykanka ku imaan jirtay, way ka laaban jirtay, magaceeda Jasmine Mooney ayaa la yiraahdaa. marka iyadoo Mareykanka soo galaysa oo fiisaheedii soo dalbatay ayaa la qabtay, ciidamada ICE waa ay qabteen, 12 maalmood ayaana la xiray. baasaboor Kanadiyaan iyaduna wadataa, ninkii baasaboorka Faransiiska watayna waa tii la celiyey. marka adigoo green card wato, baasaboor Soomaaliya wato ama travel document wato, haddii ka war intaad Soomaaliya tagto ood soo laabato maxaa kugu dhici kara? gabadhan baasaboor Kanadiyaan fiisa shaqo iyadoo wadato 12 maalmood ayay xabsi ku jirto. waxay tiri weliba xabsi yar ayaa la geliyey oo nalka aan la daminaynin, haween ayaa ku jiray, aluminium ayay ku duuduubnaayeen, qabow, cuntada xitaa ma aanan curi karin. The Guardian ayay ku qortay qoraalkaas, maxaa yeelay cuntada ma aanan aamin, waa iska soomay ayay tiri, marba xabsi ayaa loo gudbiyey. waxay sidoo kale tiri dharkii xabsiga ayaa loo geliyey, wafara ayaa layga qaaday, interview ayaana layga qaaday. waa baasaboor Kanadiyaan ay wadataan, 12 maalmood ay xiray. xitaa waxaa la ii diiday dadkayga inaan la xiriiro, qareenkayga aan la xiriiro, waxyaabahaasoo idil waa la ii diiday ayay tiri. iyadana xagga ii dhig. ninkan kale waa nin dalxiisa Jarmal ah, Lucas ayaa la yiraahdaa, isagoo dhinaca Mexico ka soo laabtay oo Mareykanka markii hore intuu dhex maray Mexico tagay haddana soo galaya oo doonaya inuu baxo wadankiisa ku laabto, isagana waa la qabtay. 16 maalmood oo xabsi oo afkiiska mariya. isagana waa nin cadaan oo dalxiisa baasaboor Jarmal wato. sidaas darteed hadda wadamada qaarkood sida Jarmalka waxa ay kula talinayaan muwaadiniintooda inaysan Mareykanka u safrin, maxaa yeelay waxa la leeyahay qofka waa la iska qabsanaya, waa la iska xiraya. sidaas ayaa hadda wadamada qaarkood wasaaradooda arrimaha dibadda ay update gareynayaan oo dadkooda ay kala talinayaan inay ka digtoonaadaan Mareykanka haddii ay u safrayaan. arrintaasna sidoo kale waa ay jirtaa. sidoo kale waxaa jaamacadda Columbia University oo Maxamuud Qaliil laga qabtay, hadda dalabkii aqalka cad ayay u hoggaansameen. dalabka aqalka cad maxaa yeelay 400 milyan ayuu aqalka cad ka xanibay. wuxuu yiri haddii aadan waxyaabahaas aadan ka soo bixinina lacagtaas idima siinayno. marka si ay lacagtoodii u helaan, waxyaabaha hadda isbedel ay ka sameeyeen waxaa kamid ah kow in jaamacadda laga mamnuuco maaskaraat in la qaato, waayo ardadu markay mudaharaadka sameynayeen qaar cimaamada ayaa afka u duubnaa, qaar maaskaraat ayay wateen. marka in jaamacadda dhanba laga mamnuucay in qofku afkiisa uu daboolo waa kow waa ogolaadeen. sidoo kalena in awoodo cusub la siiyo booliska iyaguna jaamacadda joogo oo qofkay rabaan soo xiri karaan. awal markii hore awooddaasi ma aysan lahayn. midda saddexaad waxay tahay in ardayda sidoo kalena qaybta qaabilsan bariga dhexe iyo sidoo kalena koonfurta Asia iyo Afrika waaxda qaabilsan ee waxbarashada in qof gaar ah loo xil saaro oo arrimahaasi lagala xiriiri karo oo aqalka cad haddii uu baahdo uu kala xiriiri karo. marka jaamacadda Columbia University way ogolaadeen oo New York ku taala, lacagtoodina marka in loo fasaxi doono ayay u badan tahay hadiiba dalabkii ay ogolaadeen. waxaan ogeyn sabtidii la soo dhaafay inii sheegay in Mareykanku 3 diyaaradood oo u diray El Salvador oo yiri kooxda gaangiska ah ee Venezuela ka timid ee TDA Trinidad and Tobago ayaan masaafurin. marka waxaa la ogaaday dad aan dambi lahayn. dad waxay yiraahdeen Mareykanku wasaaradda gaar ahaan aqalka cad waxay yiraahdeen dadkaasi dambiilayaal ayay ahaayeen dhammaantoodba. markii baaritaan lagu sameeyay waxaa la ogaaday dad xitaa aan wax dambiya gelin inay ku jireen. sidoo kale waxaa ku jiray ciyaaryahan xulka amaba Venezuela kasoo ciyaaro football ka ciyaaro. marka waxyaabaha ay ku bartilmaameedsanayeen waxaa kamid ahaa taatuuga. qofka haduuba taatuu leeyahay waa gaangis. marka ninkaasi taatuugiisa calaamada Real Madrid ayaa ugu samaysnayd gacanta, maadaama Real Madrid oo aad u taageerayay footballka ayuuna ciyaari jiray. marka dad fara badan oo El Salvador la geeyay hadda ayaa waxa ay muuqanaysaa in aysan dambiilayaal ahayn oo hadda qareenadooda ay leeyihiin dadkaasi waan rabnaa in dib loo soo celiyo. marka garsoorihii Trump yiri diyaaradahaasi hala soo celiyo, Trumpna uu iska dhigay maamulkiisa oo diyaaradihii halkaasi laga dajiyay. James Bosberg qareenkii hadda waxa uu leeyahay
dhowr su'aalood ayuu siiyay qalqacdu yiri waa inaad iiga soo jawaabtaan su'aalahaas waxaa ka mid ah diyaaradahaasi waqtigee ayay Mareykanka ay ka duuleen xageysa ka tuuleen Mareykanka maqayb meesha ay ka baxeen iyo waqtiga ay duuleen ii soo sheega sidoo kale waxa uu weydiiyay waqtiga ay hawada Mareykanka ay ka baxeen su'aalahu weydiiyay ka mid tahay goorma ayay ka dageen wadanka ay tageen sidoo kalena shakhsiyaadka la saaray oo la masaafuriyay halkee ayay ku xirnaayeen iyo sidoo kalena meeqa qof ayaa dadkaasi la masaafuriyay ay ahaayeen su'aalahaasi waxaa la weydiiyay dowladda Trump gaar ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa la filayay inay ka jawaab ilaa hadda jawaab waa ay ka bixin laayiin sidoo kale Trump xitaa sharciga qarniga 18aad ee Alien Enemy Act uu isticmaalay xitaa waxa la leeyahay inuusan saxiixin ayaa loo maleynaya oo sheekadu afka ahayd 1798 marka welina garsoorihii iyo maamulka Trump waa isku dhagan yihiin waxa uu leeyahay jawaab cad waa in la isoo siiyo Trump xitaa bartiis Truth Social ayuu ku caayay qareenkaas wuxuu yiri waa qareen uu magacaabay Obama walow Bush uu magacaabay laakiin Obama ayaa dalacsiyay si aad ayuu xitaa wuxuu yiri waa in xilka qaadis lagu sameeyo oo impeachment lagu sameeyo marka arintaasina sidoo kale weli garsoorahaas iyo maamulka Trump dhankaas waa isaga dhagan yihiin dhinaca kale senator ka tirsan senatarada gobolka Minnesota ayaa talaadadii waxa la arkay isagoo doonaya in uu la kulmo gabar teenager oo under age oo 17 marka booliska magaalada Minneapolis ayaa waxay sameeyeen xayisiin oo macnaha online ka ah oo amal galmo wax saasa marka ninkan xayisiintii ayuu ka soo jawaabay qofka la hadlayana waa sargaal boolis waxay doonayeen inay ogaadaan boolisku dadka doonaya dhalinyaro haweenka gabdhaha yar yarka inay jirkooda ka ganacsadaan marka senatorkii isaga ayaaba ka soo jawaabay oo waxa uu qoraal ayuu soo qoray xitaa qiimaha ayuu kala hadlay marka qofka la hadlayo waa sargaal boolis laakiin isagu senatorku waxa uu maleeyaa gabar inuu la hadlayo teenager oo 17 years old marka boolisku waa ay qabteen xitaa boolisku markay qabanayeen ninkan inuu senator yahay lama ogeyn waa la qabtay waa la xiray dacwado federaal ah ayaa lagu soo ogay maadaama talaadadii la xiray waa kan sawirkii markii laga qaaday xabsiga la geeyay sidoo kalena qamiistii waa uu iscasilay markii ay ugu baaqeen xubnaha Republicanka waana Republican xitaa senatorkan dimuqraadi ma ahan marka maadaama sanadku uu sinaa dhinaca Minnesota oo 33 uu ahaa ninkan maadaama uu iscasilay hadda 32 ay Republicanku yeelanayaan dimuqraadiyiintuna 33 marka dacwada ayaa lagu ogay maxkamad ayaaba la soo taagay maalnimadii shalay ahayd marka qareenkiisa ayaa inta badan hadlay laakiin waxa uu sheegay oo maxkamadda uu ka sheegay inuu og yahay dacwadaha lagu soo ogay marka arintaasina sidoo kale waa jirta ugu dambeyntii maamulka Trump ayaa waxa uu kala laabtay TPS ay haysteen 532,000 oo dad soo galooti ah oo ka yimid wadamada Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela dadkan maamulkii Biden ayaa waxa uu ogolaaday in laga soo bilaabo sanadkii bishii October sanadkii 2022 inay wadanka ay ku soo galaan in humanitarian parole marka qof Mareykanka u joogo ayaa sponsor gareynaya sidaas ay ku soo galeen maamulka Biden waxa uu ogolaaday 30,000 oo qof ayaa bil kasta oo afartaasi wadan ka imaanaysa ayaa soo galayay waxaana loo ogolaanayay muddo 2 sano ah inay wadanka ku noolaan karaan kana shaqaysan karaan qof kafaala qaadaya ayayna lahaayeen marka wasaaradda amniga gudaha waraaqdan oo ay shalay soo saartay Jimcihii ayaa waxay sheegtay in 30 bisha Abriil ee afraad ee soo socota wixii ka dambeeya laga laabtay TPS sidaas darteed muddo bil gudahooda ayaa laga yaabaa in lagu masaafuriyo 532,000 oo wadamadaasi Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela ka timid maadaama dawladdu ay sheegtay gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Trump in TPS ay kala laabteen aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo